waxaan u yeeri doonaa haddii ilaahay yiraahdo ustaad cabdiraxmaan cumar guure gudoomiyaha jaamacadda imaam shaafici ka maskay degmada Gurceel oo insha Allah taala ku hadli doona afka aqoon-yahanada iyo bahda waxbarashada haddii ilaahay yiraahdo aanu si kooban u dhageysano soo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علماء الدين كشرفت له مدحضة هي مسؤولين mudanayaasha iyo marwooyinka dhalinyarada ardayda mashaayikhda guud ahaan ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda qof walba waxaan ku salaamay mansabkiisa iyo maqaamka uu halkan ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxafla laysat xaflati xafladan ma ahan xafladaha aan ka hadli jiray waa runtii xaflad ka bedelan boqolkiiba boqol ma mudnayn in anoo kale u ka hadlo mashaayikhda gadaashoodana hadalkii macaanaa maxabada lahaa quruxda badnaa hadalkiioo kale inuu ka dib maro runtii ma jeclayn laakiin maadaama magacayga loo yeeray oo halkan la iga wacay waan qasbanahay nin qasbanna khiyaar ma leh wuxuu qariyo maahane waxaan ku qasbanahay marka inaan marka hore ka cudur daarto dadka akhyaarta iyo culimmada iyo mashaayikhda ah oo mudankooda uusan ahayn caawu kaleeto inaan aniga ka hor hadlo arrintaas inay iga raalli ahaadaan wixii aan gafo waa nafteyda iyo shaytaan xaggood wixii aan saxana waa min allaahi subxaanahu wa tacaala intaas kadib axbaabi alkiraam muxibbiinta caashiqiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam ee dhammaan caawa halkan ku soo xaadirtay marka koowaad anigoo ku hadlaya magaca bahda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan idinkugu hambalyaynayaa guud ahaanna aan iskugu hambalyaynaynaa bilashada bishii uu dhashay nabigeenna muxamed sallallahu wasallam wabaaraka calayh خير خلق الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين عاو أوكله والليلة قيمة بدن علماء أيها كشيكي وحي أي أهيد أنو كلية وحان ربا أو أن كلية سوكر دين كرا إنا هل كان كشيغانا أي تهي waagii horeeto bahda waxbarashada marka laga reebo dugsiyada quraanka iyo xalaqaadka cilmiga diiniga ah aad ugu ma firfircooneyn ihtifaalka nabiga sallallahu wasallam wa baraka calayh waxaad ogaataan akhyaaray wax kasta oo la diido oo laga hortago oo la dhibaateeyo oo wax lagu sameeyo hadday waxaasi yihiin wax diinta islaamka sal ku leh shay diinta dhexdeeda ka ah lama taabtaan ugu dambayn kii diidayay oo gacmaha kula jira la arkaa ma kaana lillaahi daama wattasal wama kaana lighayri illaahi inqataca wanfasal wax kasta oo ilaahay dartiis loo sameeyo way sii jiraan weligood way sii socdaan wayna sii xiriirsamaan wax kasta oo ilaahay ghayrkiis loo sameeyo way go'aan dhex iskaga dhamaadaan ajyaalun min ajyaalin ayuu soo socday ihtifaalka mawlidka nabiga sallallahu wasallam wa baaraka calayh wama zaal wasayaduum insha Allah hadda waxaad marqaati ka tihiin oo guud ahaanteen aan wada ognahay maalinta 12 bisha Rabiicul Awwal oo ah xilliga uu ka sheekeynay sheekhu xilligii la dhalay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baaraka calayh
waxaa lagu soo daray maalmaha fasaxa guud ee heer dawladeed. dawladda shaqaalaheedu waa fasax, xafiisyadeedu waa xiran yihiin. ixtifaal loo ixtifaalayo nabigeenna muxamed sallallahu wasallam wabaaraka calayh. bahdii waxbarashada iskuulladii waagi hore la dhihi jiray isqool liajli hada almawduuc wa amhaaluh. mawduucan iyo waxyaabo lamida awgeed waxaa loo dhihi jiray iskuullada isqool, meel xoogaa laysku muxuu ahaa yaa loo isku qaldo. wa kaanuu bilasaalati kida, asalkii sidaas way ahaayeen runtii. waa meeshii ilmaheenna ajaasheenna markii horeeto fikirkan lagula soo biiriyey oo ay nagu soo waarideen oo ay nagu keeneen. meelihii laga soo baray inay qayb ka tahay dadka aaminsanaan ka mid ahay aniga. laakiin dad wanaagsan oo dib uga kacay oo saxwo kale dib u geliyey, saxwadii la damacsanaa saxwo kale dhex geliyey awgeed ilaahay fadligii dadka xaqa ku taagnaa ayaa guulaystay. maantana kuwii shalay arrintaas ka shaqaynayey waxaan xasuustaa 2005 ayaan dugsi sare xamar u doontay. ardaydii dugsiga dhexe igala baxday arday ah ayaa wuxuu galay iskuul. wuxuu yidhi niyow waxaan kaa codsanayaa iskuulka inaa ila gashid. waan ka diidi. aniga iskuulkii aan uga baxay dugsiga dhexe ee Guraceel wuxuu ahaa dugsigan Alma'muun. xamar markaan tagay waxaan niyow aniga magacaasaan aan shahaado ka soo qaatay, maantana asaan ku dhammaysanayaa. dugsiga Alma'muuna gala aniga ee xagga. ardaygii wuxuu galay iskuul kale hadda aan rabin in halka magaciisa ka sheego. maalintii imtixaankii bisha koowaad testaha uu galayay wallaahi alcadiim ardaygaas Guraceel uu ila joogaa. hadda Guraceel uu ila joogaa, waa idin hor keeni karaa. waxaa loo keenay su'aalo maadada tarbiya islaamiya. waxaa loo keenay mawlid ixtifaal mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam. waa su'aasha iskuulada hadda waa taqaanaan ikhtara al-ijaaba saxiix, jawaabta saxda dooro aa loo keenay ardayga. waxaa loo keenay waa sunna, waa waajib, waa mubaax, waa kufr, waa shirk, waa xaraam. mid dooro adiga. imtixaanku wuxuu ku saxan yahay 10 darajaad 3 minha asagay dul saaran tahay, halkaas su'aal bisay dul saaran tahay. 10 darajo oo imtixaanka dhammu ku saxan yahay su'aalaha tirada badan meesha ku yaala 3 darajo oo ka mid ah waxay dul saaran tahay halkaas yarta goobada la gelinayo. ujeedka dhan ee la leeyana waa inaad gelisid ashirk. jawaabta saxda ah oo odaga doonanayo warqadan soo xariiqay waa inaad gelisaa waa shirki, inaad goobo gelisid. ardaygii imtixaankii markii uu arkay wax uu sameeyana uu garan waayey. waagii horeetana markii iskuulkaas uu galay anigu wuxuu igu cadaadinayay inaan iskuulkan la galo. Guraceel aan iskala tagnay, inta iskala safarnay. xagga markuu tagay asaga iskuulku gurigiisu u dhawaayay, labadeena guriyana waa u dhawaayay. anigu bi'alaan raacay, asana wuxuu yiri meeshaan fiican inta gelinaana keen. markii uu soo arkay goobadii la gelinayay wuxuu yiri waa iga soo sheekay. wuu ka soo baxay horta iskuulkii, wuu ka soo tagay iskuulkii uu la soo biiray. markii uu iskuulkii ugu yimid oo dhacdadii iga sheekaynaya wuxuu yiri markii haddaan kufr xitaa aan goobada geliyo waa la iga soo qaldaa wiir. waa kufr haddaan goobada geliyo waa la iga soo qaldaa wiir. araga kaliya ee la raadinayo oo galaaska dhan laga rabo waa shirki in goobada la geliyo. sunna iyo waajib waxa sidaa gelisin in iskuulka laga buriyaa halis ugu jirtaa. halkaas horta filimkan laga keenay waxaa la rabaa in la ogaado meesha problemku nooga yimid. ardaygaas wuxuu ii sheegay maadaas tarbiyada ninka uu dhigay inuu ahaa nin carab ah oo masri ah oo iskuulkaas macalinka ka ahaa. xoogaa tayaan iskuulka ku raadsaa hulaa markaas uu ka soo carara. markaan idin leeyahay marka dadka aaminsanaan ka mid ahay meelaha laga soo waariday fikirkan in iskuulisku aga hore ka mid ahaayeen. waan u mahad celinayaa culimadii iyo dadkii wanaagsanaa ee saxwadaas xun markii la keenay saxwadan wanaagsan dhex geliyay ee tacliintii iyo waxbarashadii bal horta siiqadan qaldane dadkaani ku wadaan in laga soo leexiyo
ee dad wanaagsan la soo saaro ku fakaray ayagoo koodii kale ta gacanta midig ku haysta kanna inay ay horumarintiisa ka qayb qaataan aad baan ugu mahad celinayaa ayagana marka bahdii waxbarashada maanta kulligeed xitaa iskuuladii noocaas ahay oo shirkiga goobada loo geli jiray yaa maanta waxay marayaan in 12 mawlid markii la gaaro wasaaradda waxbarashadu ay soo saarto waa fasax iskuulku waa xiran yahay waa ilaahay fadligiis nabigeenu asaga qof kasta ka adag sallallahu wasallam wa baraka alayhi diid ama yeel asaga la ku qasbantahay asagaad ku qasbantahay sallallahu wasallam wa baraka alayhi aniga marka anigoo ku hadlaya bahda afka bahda waxbarashada waxaan yaqiinsanahay waan aaminsanahay in ihtifaalka mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yahay min sha'air ad-din ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر إلهي إن دوينيسد إلهي سيداس بو أماني waxaa lagaga baahan yahay marka qof walba bahda waxbarashada maanta ku dhex jira inuu horta sameeyo baaris 2010 iyo 2014 xilli aan u maleynay xillidaas in la sameeyay daladaha waxbarashada midow loo sameeyay book oo tarbiya islaamiya manhajka xilligaas qofkii gurigiisa uu yaal uu arki doona way ku taalay mas'aladan ardada waa lagu soo qoray ayagoo mawlidkaas looga sheekeynayo inuu yahay shirki buugaas culimo ayaa ka kacday gobolka banaadir aniga xilligaas joogay rag culimo ahay oo madaaris gacmaha ku hayay ayaa ka kacay diiday wasaaradii iyo kulli ku celiyay ilaahay fadligiis halkaas waxa ka dhalatay in manhajka qaranka oo dib u saxan oo midaysan la soo saaro maanta manhajka qaranka ee ardada loo dhigo aniga iskuul xitaa gacanta ku haya qabaa'ixdaasi kuma yaalaan waxaa meeshan fadhiya mashaayikh muallimiin ka ah maadada tarbiya islaamiya iskuulada ka dhiga ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska 12aad wax alla wixii qabaa'ixahay qaswil fikri yahay oo ummadan lagu soo dhex tuuray ee la rabay in diintooda looga leexiyo wada kale anagu aanan garanayno ilaa naari jahannama ah loogu dhigo kulli waa laga soo suuliyay waa u mahad celinaynaa dadkii waa wanaagsanayeen مثقفينتا هين أرنتاس أكعين كترترين وحياباس المنهج الوسطي دين تلغوت المامي وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيا لوبا هيا مركا وإذن كديري إلهي هنا وضوافجيو محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوي مرول بأتاغن احتفال كالنبي صلى الله عليه وسلم وينيه كفرحة كر قادة جيلالك سو سعدنا سيتو ساليا الله نقدره أنا نجمد ديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا هذا لقولنا هراء وشاق عذر دارك هراء وديبت الله يقرأ لي هذا